بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan Soomaali Maxamed meel walba ay joogaan. waxaynoo sii socda gabayadii diiniga ahaa ee taxanaha ahaa. gabayga maanta waxaa la yidhaha baqdinta. wuxuuna ka hadlayaa inuu qofku markuu hawl qabanayo siba ay ku cusub tahay uu ka baqo oo nervous iyo uu dareemo. wuxuuna gabaygu ku bilaabmay sidan: haddaad aragto kolkaad arrin baaxad weyn qabanayso naftaadoo baqdaa, waa mas-uul bilal inaad tahay iyo bini'aadan xilkase. bisinkood dhabtii si buuxda u barkataa biiyo baqashada, umana baahnid inaad baqdo. baqashadu waxay ku timaadaa nafta iyo ibliis isbiirsaday. wixii ku barbar taagan ha u fiirsan badiyaa, baraadna ha u gelin. adigu baawarka iskugu keen kalsooni iyo burji weyn oo ku badhitaara. allaha boqorkaa bari, tala buuxdana saaro. bale ma jirto, baqdintu waa shay naftu kuu buunbuuniso. kolkaad arrin muhiima bulshada u soo bandhig leedahaa ku qabataa baqashada u weyniye. inta bulshada ugu caqliga badan ayaa ugu mas-uuliyadda uga baqi og. waad mahadsantihiin dhammaantiin. waxaan leeyahay cabsi uma baahnin iyo nervous. aynu nafteenna iyo kalsoonideena dhisna insha allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.